Maalin maalmaha ka mid ah ayaa tuulo lagu magacaabo Briston waxaa ka dhacay dagaal dhowr iyo 10 sano socday oo u dhexeeya kuwa duurjoog ah iyo dad caadi ah. Kadib dagaalkii si tartiib tartiib ah ayuu u soo afjarmay. Dadkii waxay garaaceen kuwii duurjoogta ahaa, waxayna noqdeen kuwo guuleysta. Intii lagu jiray weerarkii ugu dambeeyay ayaa dadkii waxay arkeen canug yar oo hadda dhashay. Mid ka mid ah dadkii ayaa waxa uu ku yiri, "Kan yar hadda aan dilno ama khatar buu nagu noqon doonaa mustaqbalka." Ninkii madaxda u ahaa ayaa ku yiri, "Maya, waa canug yar. Haddii si wanaagsan loo barbaariyo waxay noqonaysaa addoon." Kadibna way soo kaxeeyeen. Inkastoo uu ku soo barbaaray mujtamaca bini'aadamka, iskuulna uu la dhigan jiray, haddana mar walba waxaa lagu takoori jiray muuqaalkiisa yar ee foosha xun. Dadkuna waxay ugu yeeri jireen gablankii yaraa. Markii ay carruurta ciyaarayaan way iska fogeyn jireen, iyagoo dhahaya, "Yaa kuu oggolaaday halkan? Istaag barxadda dugsiga, intaan ciyaarayno meeshaadu waa geesta fasalka oo kaliya. Laakiin waxaan rabaa inaan idinla ciyaaro niman yahow." Haddii uu ku dhaho iyagoo ku jeesjeesaya, "Nala ciyaar, balse ma u malaynaysaa inaad tahay goblankii yaraa?" Isaguna mar walba fogaanta u dhaxaysa isaga iyo bini'aadamku way sii weynaanaysay. Si kastaba ha ahaatee, dadka oo dhammi sidaas may ahayn. Weli waxaa jirta gabar yar oo la oran jiray Maria oo aan dan ka lahayn muuqaalka gablankii yaraa oo haddana la ciyaarayay. Waxay ku tiri, "Aan banaanka u baxno oo aan wada ciyaarno, kaligaa maxaad halkan ka qabanaysaa?" Inta badan waxay u keeni jirtay cuntadii uu jeclaa, marar badanna waa ay la ciyaartay isagoo ahaa kali. Waxay siisay kalsooni, taasoo ka dhigtay inuu moodo in noloshaani ay tahay mid qurux badan oo macno leh. Si tartiib tartiib ah labadoodu waxay bilaabeen jacayl. Arrimuhu sidaan ayay ku sii socdeen, labadoodu way isla soo koreen. Waqtigoodii inta badan way isla soo qaadan jireen. Kadib Maria familkeeda ayaa ogaadeen wayna ku qayliyeen, "Yaa kuu oggolaaday inaad halkan joogto? Ku noqo gurigaaga hadda." Si kastaba ha ahaatee, jacaylku waxaa mamnuucay qoyska Maria. Umay oggolaan inay mar dambe u dhawaato gablankii yaraa. Wiilkii bay ku qaylisay hooyadii, "Haye gablanyahow, intee jeer baan kugu yiri ka fogow gabadhayda?" Maria ayaa dhahday, "Hooyo, sidaas ha noqon. Waa inaan si daacad ah isugu nimaadnaa. Ma jirto cid nagu qasabtay." Maria iyadoo hadalkeeda iska wadata baa hooyadii ku tiri, "Laguma oggola inaad wax tiraahday. Degdeg gurigaaga aad. Soco ka dhaqaaji halkan." Maria iyo hooyadeedna waa ay dhaqaajiyeen. Wiilkii isagoo ka daba socda ayaa odaygii qabtay. Aabihii ayaa haddana ku qayliyay, "Haye goblin, imise jeer ayaan kugu yiri waa inaad ka fogaataa Maria." Isagoo ooyaya ayuu waxa uu yiri, "Waan jeclahay Maria." Maria aabaheed waa uu xanaaqay, si isdaba joog ah ayuuna u garaacay goblinkii. "Tani waa markii ugu dambeysay aan kaaga digayo. Haddii aad ku dhiirato inaad mar kale la kulanto Maria, ha igu eedayn inaan si naxariis daran kuula dhaqmo," ayuu ku yiri. Hooyadeed ma aysan rabin inay Maria la joogto wiilkan. Kadib Maria waxaa loo guuriyay milkiilaha dhulka, kaasoo ahaa wiil ku cayaara gabdhaha quruxda badan oo deegaanka. Qoyska Maria waxay ku tashadeen haddii ay ku noolaato guriga milkiilaha inay heli doonto nolol wanaagsan. "Tani waa Maria, gabadhayda. Waxaan rajeynayaa inaad halkan ku daryeesho. Maria miyay ila joogaysaa? Si raaxo leh ayay ugu noolaan doontaa inta ka harsan nolosha halkan." "Mahadsanid mudan," ayay labadooduba dhaheen, waa ayna ka sii tageen. Maria ma aysan aqbalin arrinkan. Kadib markii ay waalidkeed tageen, milkiilaha Maria ayuu damcay inuu si xun ula dhaqmo. Kadibna waa ay dhaawacday, wayna carartay Maria. Waxay la kulantay jacaylkeedii. Markii uu maqlay in Maria lagu meheriyay ninkii dhulka lahaa, ayuu degdeg ula soo cararay si uu ula kulmo. "Inakeen aan halkan si wadajir ah uga baxno Maria," ayuu ku yiri. "Waan joogaa," ayay ku tiri. "Waa hagaag, weligaan waan wada joogi doonaa labaduba." Labaduba waxay ahayd inay si joogto ah u dhuuntaan, laakiin waxay wada joogeen waqti hore ilaa goor dambe. Wax walbana way sameeyeen. Laga yaabee inay ahayd waqtigii ugu quruxda badnaa noloshooda. Si kastaba ha ahaatee, arrimuhu way fududaayeen.